Sanjabiil waa geed caleemo yaryar oo la beero, mirihiisa wuxuu ku samaystaa jiridda hoose, waa sida looska oo kale dherer ahaan kama weyna, sida uu u baxo bariiska, markaad aragto kama duwana dhirta kale ee caadiga ah. Caalamka oo dhan ma jirto waddan aan laga isticmaalin sanjabiisha, heerar kala duwanna way soo martay. Haddaba warbixintan kooban waxaan ku soo qaadan doonaa 7 faa'iido oo ay leedahay sanjabiisha iyo 10 waddan ee ugu horeeya adduunka. Haddaan ku hormarno wadamada ugu horeeya, warbixin ay soo saartay Hay'adda Cunnada Adduunka Qaramada Midoobay u qaabilsan cunnada iyo beeraha FAO 2008 ayay ku sheegtay in waddanka koobaad ee ugu horeeya soo saarka sanjabiisha uu yahay dalka Hindiya. Waxaa sidoo kale xiga China, Indonesia, Nepal, Thailand, Nigeria, Bangladesh, Japan iyo sidoo kale Philippines. Haddaba maxaa ka mid ah faa'iidooyinkiisa? Sanjabiisha waa geed loo adeegsan karo siyaabo kala duwan sida unsiga iyo sidoo kale dawooyinka la isku daweeyo. Waxaa loo isticmaali karaa habab kala duwan oo marbuda ayaa laga dhigtaa, waa sida Soomaalida u isticmaasho oo shaah iyo qaxwaha ayaa lagu dartaa. Midna waa la qalajiyaa oo saliidda ayaa laga shiidaa, midna sida biyaha oo kale ayaa laga dhigaa, dhammaantoodna waa kulayl. Halkan waxaan ku soo gudbinayaa 7 waxyaabood oo dawo u yahay sanjabiisha. Shaaha lagu darsado sanjabiisha misna si gaar ah loogu soo daro waxay ka hortagtaa kansarka. 17 daraasadood oo kala duwan oo sahmin loogu sameeyay sanjabiisha ayaa dhammaantood gunaanadkii soo jeediyay in qofka badsada sanjabiisha ay ka hortag fiican u tahay kansarka. Sidoo kale cudurro dhowr ah ayay dawo u tahay sanjabiisha. Waxay baabi'isaa lalabada. Cabidda la cabo 1 koob oo shaah sanjabiil leh ka hor intaadan socdaalin gelin waxay kaa caawinaysaa inaadan dareemin yalaaluga ama lalabada iyo mantag la xiriira dhaqdhaqaaqa. Daraasado la sameeyay ayaa lagu ogaaday 80 ruux oo lagu tijaabiyay 1 garaam oo buda sanjabiisha muddo 4 saacadood ah inay ku ogaadeen dhammaan dadka la siiyay inay caafimaad dareemeen. Dheefshiidka aad ayay ugu wanaagsan tahay, sidoo kale caabuqa ayay hoos u dhigtaa. Waxay dishaa caabuqa ku dhaca hawo-mareenka, waxay ilaalisaa caafimaadka dhiigga iyo habdhiska dhiig-mareenka, waxay hoos u dhigtaa xanuunka dhiigga caadada. Dhammaan faa'iidooyinka